yahay mustashriqa Swedishkaahi umaynan cadaalad samaynin nabi maxamed haddaynu inkirna buu yidhi wixii uu sifaad waaweyn lahaa haddaynu inkirno iyo tilmaamaha lagu dooran kara bini aadama uu lahaa buu leeyahay haddaynu inkirno waxay ka markhaati tahay buu leeyahay inaynan cadaalad samaynin waayo buu yidhi nabi maxamed dagaal nololeed buu galay buu leeyahay uu la galay jahliga iyo hamajinnimada waanu ku adkaystay mabdiisa ilaa iyo uu keenay buu leeyahay shareeco akmalu sharaa'ica waa shareecada maanta ragga badhay rabaan inay yidhaahdaan waa shareeco mutawaxisha ayuu ninkaa Swedishkii wuxuu leeyahay fa asbaxat shariicatuhu akmala sharaa'ic shareecadiisu waxa weeyaan buu leeyahay shareeco la dhigo ta ugu fiican ama ugu dhammaystiran wa huwa fawqa cudamaa'i taariikh buu yidhi dadkii waaweynaaye taariikhdu sheegtay oo dhanna wuu ka sarreeya goote waa taqaaniin goote waa shakisbiirka jarmal ummadda afka jarmalka ku hadasha halka shakisbiir ugu jiro dadka afka ingiriisiga ku hadla ayuu gooteena ugu jira weliba goote shakisbiir waxyaabo aan gabayga ahayn buu geli jiray gooteeye uu dheer yahay goote baa wuxuu leeyahay haddaynu reer yurub nahay buu leeyahay wax allaaliya waxaynu afkaar hayno oo dhammi ma gaadhaysa buu leeyahay tuu maxamed gaadhay waa gootee baa wuxuu isbarbardhigayaa aaraad iyo afkaarta reer yurubka iyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dunida keenuu isdhinac dhigaya deetana wuxuu leeyahay haddaynu reer galbeed nahay mafaahiimteennoo dhammi ma gaadhayso ilaa maa wasala ilayhi moxamed wa sawfa laa yataqaddam calayhi axadun buu leeyahay mustaqbalkana ma filayo cid dhaafi doonta inay jiri doonta buu leeyahay waa gooteegii jarmal walaqad baxadtu fi اtaariikhi can muhal aclaa lihada alinsaan taariikhdoo dhan baan waxaan baadhay buu yidhi bini aadamka qof aan tusaale uga dhigo waxaan helay buu yidhi nebi maxamed inuu noqday bini aadamka qofkii aan tusaale uga dhigi lahaa sidaa awgeed buu yidhi waxaa waajiba inuu xaqu muuqdo oo korreeyo sidii uu muxamed u korreeyey ee uu dunida kelimatu tawxiid ugu kor yeelay buu leeyahay waa gabyaagii riwaayiga ahaa ee faransiis ee jarmal ee macruufkii aad taqaaniin dadka wax qoraa aad bay u badan yihiin laakiin waan koobayaa waxaa jira gabyaa kale oo jarmal ah oo faransiis ah waa alfonso de lamartine alfonso de lamartine waa nin politician siyaasi buu ahaa oo second republickii faransiiska raggii qaybta weyn ka qaatay buu ka mid ahaa gabyaana wuu ahaa dabeetana wuxuu rabay inuu wax ka qoro buug buu leeyahay taariikhda turkiga ah turkigu wax ka qorayey maadaama uu turkiga wax ka qorayay waxa qasab ku noqotay turkiga dee diinta ay haystaanna inuu wax ka qoro uu milicsado dabeetana markuu akhriyey taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa 14 sano kadib muxaadaraadkii carlel uu jeedinayay kadib weeyaan markuu akhriyey ayuu wuxuu yidhi bini aadamka ama qaadada hormoodka bini aadamka kriteriyaan u dhigayaa buu yidhi aynu ku qiimayno oo saddexa bal ninkanna kriteriyadiisa dhegaysta wuxuu leeyahay waxaan ku qiimaynayaa 3 shay kow greatness of purpose 2 smallness of means 3 outstanding results 3 shay baan wax ku qiimaynayaa buu yidhi qofka bini aadamka ahi inta ay sarraysay barbowskiisu himiladu raadcaynaya inta ay leekayd oo nebi maxamed himiladiisu maxay ahayd wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas baa ilaahay ku soo diray bini aadam oo dhan baan kuu soo diray baa ilaahay ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam bini aadam oo dhan inuu hoggaamiyo yaa ayuha almudahiru qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahir baa lagu yidhi idan wuxuu leeyahay qofku inta uu ka fakaraya ama iskoobka uu gaadhsiisanaya aragtidiisu ay ku socotay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baa ilaahay ku tilmaamaya kan labaad wuxuu leeyahay إذا النبي محمد يونيفرسال بوها وحو كفكري
caalamkoo dhan baa ilaahay u soo diray jin iyo insigiisaba ka labaad wuxuu leeyahay smallness of means awoodda uu haystay inta ay leekayd dee nin maalan maanta ninka dowladda maraykan xukuma dee wuxuu haystaa miiniskii dunida ugu ballaadhnaayo nin madaxa gacantiisa gala hadday dhaqaalo tahay hadday hub tahay hadday dawlad tahay hadday technology tahay hadday dunida ciddii hogaaminaysu maamulaa ama isagu ninkani qofku qiimaysanaya waa maxay qofkan waa inuu wuxuu haystayna inay wax yar noqdaan nebi maxamed markaynu eegno calayhi salaatu wasalaam dee wasaa'il dhaqaale ma haysan cidi lama soconnin inan yaroo agoona oo meel cidlaa ku soo koray tolkiya dadku ka dhashay meel saxaaroo lama degaa bay joogeen carabi magac iyo maamuus dunida kumay lahayn labada dawladoodee waaweynee dunida ka taliya midnaba may ahayn yacni waxay ahayd uun meel bini aadam deggan yahay meesha ugu dambaysa ee la tilmaamo ayay saxaara alcarab ahayd markuu nebi moxamed ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam qodobka saddexaad ee la martiin wax ku qiimaynaya waxa weeyaan waa outstandingka resultska ka soo baxay nataa'ijka uu dhaliyey siday u weyn tahay nataa'ij raa'ica yacni nebi maxamed wuxuu leeyahay taariikhda bini aadamka haddaan saddexdaa shay ku qiimeeyo qof himiladiisu weyn tahay waxa agtiisa yaallaana ay yar yihiine awoodee u haysta midhaha uu dhaliyeyna uu midho caalamiyo aad u ballaadhan yahay markaan wax ku qiimeeya buu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay buu leeyahay qofka ugu mudan bini aadamka ee la tilmaami karo masalada uu ninkani sidaa u tilmaamay waxaa tacliiqinaya bosworth smith benyamin bosworth smith waa bishop maraykan ah buug buu leeyahay la yidhaahdo uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kaga warramayo dabeetana wuxuu leeyahay moxamed buu yidhi laqad kaana alqaysara waalbaaba ninkani waa bishop markaa labadii uu yaqaane ugu awood badnaa buu isku daray nebi moxamed wuxuu ahaa buu yidhi qaysar iyo baabahoo la ysku daray buu yidhi yacni dawladihii romaniska boqor dawladda hoggaamiyo qaysar la yidhaahdaa jiray iyo dee boobkii katoliga moxamed wuxuu ahaa buu yidhi labadaasoo la ysku daray laakiin haddana bal u fiirso laakiin buu yidhi muu lahayn lakinahu kaana baaban biduuni khuyalaa'i albaabawaat baabo boob aan lahayn buu leeyahy isla weynida boobabku ay leeyihiinna ma lahayn buu leeyahy rajul mutawaadica buu ahaa si kale markaan u eega buu yidhi waa qaysar biduuni juyuushi alqayaasira wa biduuni jeyshin muta'ahab wa biduuni qalca wa biduuni dakhlin haabit wuxuu ahaa buu yidhi qaysar ama boqor aan ciidan lahayn oo aan qalcada iyo castalis meelo dhufaysya wadanin oo aan xataa buu yidhi mushahar qaadanin mushahar raatiba xataa aan lahayn buu leeyahy idan wuxuu leeyahy nebi moxamed wuxuu ahaa qaysar iyo boob la ysku daray oo aan isla weynida qaysarkana boobkana lahayn wixii ciidan iyo xoog iyo xoolo uu qaysarku watayna aan wadanin buu leeyahy labadaasoo la ysku daro haddana aan intan wadanin waa wax cajab qaba saa daraaddeed buu wuxuu tilmaamayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay mihaalka ugu cadiimsan ee bashariyada soo maray linardo ayaa isna wuxuu tilmaamayaa leeyahay muxamed ina muxamadan acdamu albashariya qaatiba asdaq insaanin wujida calaa wajhi اlardi buu leeyahy nebi moxamed waa qofkii ugu weynaayee dunidan soo maray waa insaankii ugu run sheegga badnaa ee dunidan soo maray ayuha alaxiba waxaa idinku filan soo ma ogdin united nationku inay leeyihiin kulliyad ku taalla talyaaniga toronto bay ku taallaa oo kulliyo leadershipka lagu dhigo oo leadershipka yacni united nationkeeda iyo dadka ka shaqeeya leadershipkooda sida ay loo hoggaamiyo ma filaysaa leadershipka ugu weyne loo dhigaa inuu yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo professor ingiriisi dhigo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam professorrada ingiriiska ugu caansan ee leadership ka warrama buug buu leeyahay la yidhaahdo qiyaadatu moxamed the leadership of moxamed uu leeyahay kaasaa laga dhigaa wuu dhigaa
united nationka qaadadeeda si loogu tareengareeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii idan marka ay noqoto cilmi iyo jaamacad iyo taariikh iyo bini aadam waxbaadha iyo dad insaaninimada bini aadamnimada ay qiimo u samaynayso nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa hormoodka bini aadamka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam gaal baa u yimi ay carabi u soo dirtay waa gaal loo soo diray inuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka saaro duu ka fiirso cutba bnu rabiica abalwaliid waxaa loo soo diray inuu nebi moxamed diinta ka saaro dabeetana nebiga intuu yimi brobosals buu la yimi niyow dad waxaan doonayso waxaasaanu ku siinaynaa dadkan doonayso kaasaanu kaa dhigaynaa dadkan doonayso laakiin dee ilaahiyadada iyadan iyo waxaad warkan aad ka sheegaysaa dhaaf marka wuxuu wadaa in compromise diinta laga galo laga heshiiyo oo isaga iyo nimankii quraysheed negotiation ay wada galaan oo nebigana la siiyo wixii uu u baahan karo haddaad boqor doonayso boqor baa laga dhigayaa haddaad xoolo ku doonayso waxa kan annagaa ninka ugu xoolo badan kaa dhigayna haddaad gabdho doonayso inanta ugu fiican baa lagu guurinaya yacni wixii maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan you will get it laakiin waxaan u baahannahay uun dee inaynu masaa'ilkan ka wada hadallo aad ilaahiyada iyo baabkan cayda ka dayso nebigu waxaa iyadoo loo akhrinayo u dhegaysanayay kuma odhanin war bal waxaa gaalkii wuxuu ku hadlaya day gaalnimadaasaad iila timi kuma odhanin ee wuu dhegaystay markuu dhegaystay uu ninkani warkiisii gaalnimada ha dhammaystay nebigu uma jawaabin markiiba wuxuu ku yidhi afaraqta yaa abalwaliid warkii ma dhammaysatay weli mise waxbaa kugu hadhay buu leeyahy yacni isagu weli rabaa inuu jaan siiyo afaraqta yaa abalwaliid warkii ma kaa soo wareegay buu leeyahy hadalkii ma ka baxday ma dhammaysato markaasuu yidhi haa markaasuu nebigu aayad qur'aana ku akhriyey suurad suwarka makiga qaybteeda hore ka mid ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku akhriyey suuraddii markii uu dhegaystay ayuu nin carbeedoo afkana garanaya buu ahay wuu isbeddelay dabeetana nimankii carbeed markuu noqday waxay dhaheen wallaahi rabiica ibnu cutbata ibnu rabiica sidii uu inagaga tegey si aan ahayn buu la soo noqday bay dhaheen ninku ninkii aynu dirray warka aynu ku dirray ma aha maxaan qisadan uga dan leeyay qisada imaam alalbani wuu taxsiiniyaa fii siiratii waxaan leenahay waxa weeyaan qofkan inaynu dhegaysanno bal horta waa ibtilaysan yihi dhib baa haysataa laakiin mashkilaadkiisa kan iyo waxaan madaxiisa ka guuxay iyo waxaanuu ismoodsiiyey ama waxaan loo akhriyay inaynu ka dhegaysanno waa mid labaada inaynu ogaannana xiwaarku dee qur-aanka ilahay wuxuu inoogu sheegay ambiye xataa ilaahay wax weydiisanaysa waid qaala ibraahiimu muxuu nebi ibraahim yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta ilaah waxaad i tustaa dadkan dhinta bal sidaad u soo noolaynayso ama nebi muuse inuu yidhaaho ilaah waxaan rabaa inaan ku arko idan su-aashu waxay doonta ha ahaato waxaynu u baahannahay dadkan inaynu dhegaysanno oo qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa gaalo badan oo xiwaar lala sameeyey qaar wax diidanaa baa ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad ku tidhaahdaa ara'aytum maa tadcuuna min duuni illaahi aruunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaati iituunii bikitaabin min qabli haada aw ahaaratin min cilm in kuntum saadiqiin ilahay wuxuu leey waxaad ku tidhaahdaa war bal waxaan aad baryaysaanee u cibaadada ula imanaysaan itusiya dhulkan waxay ka abuureen maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat kownkan dhana sidan u dhisan ma qayb bay leeyihin ma shuraka ilaahay ku leeyihin iituunii bikitaabin min qablu haada kitaab hore waxaan ka warramayo siday ku doodaysaan sheegaya hadduu jiro keena aw ahaaratin min cilmi ama raad aqoomeedoo waxaa sheegaya hadduu jiro keena yani islaamku cilmi ma diidana laakiin ilxaadku cilmi maaha waa shubahaad laysu geegeeyey saasi awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa xiwaar in lala galo kuwa waxa kana aaminsan ilmahaaga ama ka kugu dhow ama kan
xanuunadani ku dhaceen markaad ka dhegaysato wuxuu u baahan yahay inaad maagina haddaad adigu aqoontaa leedayna inaad u jawaabto haddaanad aqoontaa lahaynna inaad u baadi doonto tabiib kaloo daweeya ilmaaga xanuun caadiya markuu ku dhaco dee haddaad anigu dhakhtar ahayn oo daweyn karan in dhakhtarbaod la raadsaa soo maaha yaa dhakhtarkee fiican baad tidhaahdaa iyo takhasus wadneed yaale iyo waad waraysi tagtaa adigoo raba ilmaha inaad jirradan ka dawayso fakadaalik tanna waa jirro kale uun jirro kaloo ku dhacday adigoon waxba war waxay ahayd inaad u raadiso tabiib kaloo daweeya tabiib alquluub dadka ah ee shubahaadka qalbiga bini aadamka ah gala daweeya inaad u raadiso weliba waxaa fiican xiwaarkaasi inuu kitmaan ku dhaco waxay jecel yihiin inta badan inaan la ogaanin inay waxay rumaysan yihiin waayo cultural pressure baa jira oo inanka dee reerkoodii caddaabaa walba waxaa rumaysnaa markaa waxa kan iska qiranaya waxba uma arko innaga waxaa jira cultural pressureku wax jira oo nebigu calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu yidhi jaarkaygii baa khaatiga taaganay jaar aad u xun buu lahaa nebigu wuxuu ku yidhi alaabtaada intaad qaadato alaabtaadii guriga intaad ka saarto waddada dhig ninkii sidii nebigu yeelay buu sidii nebigu amray buu aqbalay alaabtiisii intuu soo qaatay ayuu waddada dhigtay dadkii baa soo mara war maxaa kugu dhacay baa la yidhaahdaa jaarkaygaa dhib batayoo dee gurigaygii baan uga imi inkaar alle kugu ridbay dadkii oo dhan bay yidhahaan waa maagaan muxuu ahaa ninkan saanu dadka u galay ninkii jaarkahabaa markii dambe u tago wuxuu yidhi waryaha dib kuu dhibi maaye soo haraysa alaabtaada wax dambe kuga yacni ninkan brasharkii mujtamacaa beddelay mujtamaca cadaadiskiisii ayaa beddelay saa daraaddeed ilmahani cultural pressureka haysta buu wuxuu ka cabsi qabaa inuu sheegan kari waayo waxaan laakiin wuu rumaysan yahay wuu qarsanaya wuu rumaysan yahay oo wuu qarsanaya hadday daragtay wuu cabbayaa hadday qurunqadhaadhkan tahay wuu samaynayaa hadday tahay caqiidada tan wuu laakiin wuu qarsanayaa walidaalika waxaa habboon bay yidhaahdaan ragga masaa'ilka khubarada ku ahay in xataa haddaad u geyso cid waxa khabiir ku ah inay labadoodun u dhex ahaato aanad sheegin inaad u dayso isaga iyo tabiibkiisaasi waayo lagama yaabo dee intaad maalin u geyso inuu fuxbuu ku yidhaahdo dabeetana u kaco maaha suurtagal waa adagtay qofka kani shubahaadkana waa ku biireen marka wuxuu u baahan yahay muddo in xiwaar u furmo labadooda tan oo masaa'il badan maalinba mid laga doodo oo maalinba mid oo waxaa laga yaabaa bila inay qaadato laakiin bila kadib inuu qancin karo waana tajribe aan aragnay rag u dhuun daloola masaa'ilkaasiyo culamo ahi dad badan oo ay diinta ku soo celiyeen oo loo keenay calaa haada alasaas bay ku daweeyeen inay uun labadooda doodda u dhexayso aan cid kaleba ogaanin siday u wadeenna ay markii dambe qanciyeen waxaan ku soo koobaya markaa ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy wawxiya ilaya haada alqur'aanu liundirakum bihi waman balag nebi maxamed baa waxa la yidhi waxaad tidhaahdaa wuxiya ilaya haada alqur'aan liundirakum bihi waman balag qur-aankan baa laysoo waxyooday si aan ugu digo idinka iyo ciddii uu gaadhayaba ilaahay wuxuu leey wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah gaaladii la istilay mid gaalada ka mid ah hadduu magangelyo idin weydiisto magangeliya ilaayo intuu ka maqlaya ilaahay warkiisa baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala uma abliquu ma'manah ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya lam yakun aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina munfakiina xataa ta'tiyahum albayina rasuulu min allah yatluu suxufan mutahara fiiha kutubun qayima may ahayn may noqdeen nimanka gaaleed iyo kuwa ahlu kitaabkuba inay qalloocooda iyo diinxumadooda ka baxaan may suurto gasheen ilaa iyo uu timi maxay bayinada cad waa maxay rasuulu min allahi yatluu suxufan mutahara
rasuul xagga alle ka yimi oo ku dul akhrinaya suxuf mutahara fiiha kutubun qayima baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala. waxaan rabaa inaan soo koobo, waxaan ku soo koobaya wuxuu yahay shubahaadkan ma rabo inaan masaajidka kaga dhex hadlo. shubahehebla waxaasay daliishadaan iyo waxaasaa lagu radiyaa ayaa kan dadka wuxuu u baahan dee kutubtay ku qorantay iyo meelahay ku taalla iyo qur-aanka say u isticmaali lahayn baynu tilmaamaynaa. laakiin waxaan rabnaa inaynu sheegna waxa weeyaan war meesha tan shubahaadkaasi waa tiro badan yihiin, iyagoo weliba systematic ah oo iskuulinka ka bilaabma ilaa iyo jaamacadda uu qofkaasi bii'ada waxaas iyo uu ku dhex jirayo. ilmahaas idinku iyo masaajidkii iyo maqaaxidii lagu murmayey iyo intan baa idinku tagtaan. gaal kiina ugu badanee laba ula shaqeeya buu arkaa, laakiin dadkan yaryari waa isku melmeen meelahan ay wax ku dhiganayeen iyo meeshaynay la joogaan. dhibtaasaa haysataa. shubahaadkaasna waxaynu leenahay waxay dhibeen dadkii aan loo dhigin caqiidadii diimeed, oo marka hore aynu moodaynay dadku sidaa ay inoogu midab eegyihiin inay ugu caqiide ekaan doonaan, oo marka hore inaan xil badan iska saarine xilka ugu badan aynu iska saarray inuu noqdo qur-aanka sida loo akhriyo inaynu wax ka barro. jisca muu akhriyi karaa, tabaarak buu akhriyi karaa, sida loo akhriyo inaynu wax ka barro. sida loo akhriyo waxaa ka sii muhiimsan sida loo fahmo. marka waxaan ku soo koobayaa darskeenna kan dhibtaasi waa jirtaa, ubadkiina way haysataa. waa mid ku fidmoobay iyo mid qarka u saaran. inta badbaadisa beersantkeedu waa beersanti yar. taariikhda bini aadamka soo jireenkana waxay tilmaamaysaa dadka aan iyagu wadanin manahij wax beddasho dadka kale aan beddelaynin ugu badnaan inay 3 qarni 3 jiil inay ku beddelmaan. dad adugu de sidii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dad dacwo iyo diin wado iyagu dadka beddelaya yihiin oo manhaj sito oo iyagu wax dhigaya, kuwaasi waa gruub kale. laakiin dadkan kale iska hijrooday kolba meel iska degaa 3 jiil unbay sii noolaadaan. jiilka 3aad dadku ka mid yihi adugu kaa dashay isagoo yaro khafiifa oo afkiina midhadh ka garanaya, waxoogaa cilmi dhegdhegoodii yarna diinta ka maqmaqlay. kaasi ku sii dhala qiyaas muxuu noqonayaa? dee meeshaasii jooga. kaasi ka 3aad u dhala xagguu noqonayaa? practicalina waa la hayaa. eeg muslimiintii dagaalkii koowaad ee dunida tagtay latin america waxaa ka tegey muslimiin aad u tiro badan oo weliba shaam ka tegey dhulkan la yidhaahdo. atrak baa looga yaqaanaa xaggaa markay tageen, waayo baasaboorkii cuhmaaniyiintay siteen oo inay turki yihiin baa loo haystaa, lakiin waa carab. marka laga eego xagga dhaqaalaha iyo waxaa iyo madaxnimada iyo waa madax oo kuwii waddannadan latin america raggii xukumayey, carlos mancim iyo hebel yani raggii xukumayey. marka xagga lacagta laga eegana waa tujaarta ugu waaweyn, laakiin xagga diinta marka laga eego way tirtirmeen. xataa masaajiddu california imika masaajidadan ku yaala qaar ka mid a masaajiddii waagaa hore muslimiintaa hore tagtay ay dhisteen qaar baa hadda baarking ah. masaajid 7 dabaqaa jiro hadda baarking ah. waa baarking gawadhida lagu xidhayo. xagga sarena calaamadihii muslimka ayaad kursiya waxbaa ku qoran. baarkinga markaad halkaa kaga soo socoto waxaa suran calaamadaa suran islaamiyo tilmaamaya. kuway sii dhaleen unba iibsaday masaajidkiina, ila iyagu masaajid ba may rumaysanayn. daaruun awowyadoodii hore ka tegeen bay hayde. waxaan uga dan leeyahay haddii la waayo waxaan cid iska xil saarta oo wax beddasha oo wax dhigta oo dadkana ilaalisa, haddii la waayo 3daa guruubaan imika idiin sheegaya unbay ka mid noqon doonaan. 3daa guruube trendka ah aan leenahay waa trendiska socda ayay ka mid noqon doonaan. in ilaahay dafirta, in qoomamka aan la garanayn ku biirta,
in daragga iyo waxaa ka shaqaysa noocaas umay wakaan doonaan waxa qura ay ku badbaadi karaan dadkaynu u nimin aynu ku badbaadin karnaa waa inaynu diintan sheegno inana isu sheegno kuwan aynu u nimina aynu u sheegno oo ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeedhno wax kastoo xanuunoo jirana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن كاس وحوية هي دتك مؤمنين هدى وشفاء شفاء لما في الصدور لابت وحا حنون قال أردن مدوية وهي قرآن بان سودك النبي إله إليه عافمات وحلقة عافمات أنا عقوش هي قلوبتا وغفي عنه haddaad labadaa ka waalato waxba nolosha kale ma tarto dhadhan ma leh nolosha kale dad balaayin haysata dhadhan ma leh noloshu waxay dhadhan leedahay markaad labadaa ka nooshahay khitaaman lidars dhibtaasaa jirta dawadiina ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa labadaa wax baynu u baahanno aad siin inaynu samayno marka hore badbaadinno intaanay waxaas ku dhicin iyo marka labaad oo ah cilaaj fiican inaynu samayno sala allahu calaa muxamedin wala aalihi wasaxbihi wasalam nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam gaal baa u yimi ay carabi u soo dirtay waa gaal loo soo diray inuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka saaro duu ka fiirso cutba bnu rabiica abalwaliid waxaa loo soo diray inuu nebi maxamed diinta ka saaro dabeetana nebiga intuu yimi probosals buu la yimi niyow dad waxaan doonayso waxaasaanu ku siinaynaa dadkan doonayso kaasaanu kaa dhigaynaa dadkan doonayso laakiin dee ilaahiya dad iyadan iyo waxaad warkan aad ka sheegaysaa dhaaf markaa wuxuu wadaa in compromise diinta laga galo laga heshiiyo oo isaga iyo nimankii quraysheed negotiation ay wada galaan oo nebigana la siiyo wixii uu u baahan karo haddaad boqor doonayso boqor baa laga dhigayaa haddaad xoolo ku doonayso waxa kan annaga ninka ugu xoolo badan kaa dhigayna haddaad gabdho doonayso inanta ugu fiican baa lagu guurinaya yacni wixii maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan you will get it laakiin waxaanu u baahannahay uun dee inaynu masaa'ilkan ka wada hadallo aad ilaahiyada iyo baabkan cayda ka dayso nebigu waxaa iyadoo loo akhrinayo u dhegaysanayay kuma odhanin war bal waxaa gaalkii wuxuu ku hadlaya de gaalnimadaasaad iila timi kuma odhanin ee wuu dhegaystay markuu dhegaystay uu ninkani warkiisii gaalnimada ha dhammaystay nebigu uma jawaabin markiiba wuxuu ku yidhi afaraqta yaa abalwaliid warkii ma dhammaysatay weli mise waxbaa kugu hadhay buu leeyahy yacni isagu weli rabaa inuu jaan siiyo afaraqta yaa abalwaliid warkii ma kaa soo wareegay buu leeyahy hadalkii ma ka baxday ma dhammaysata markaasuu yidhi haa markaasuu nebigu aayad qur'aana ku akhriyey suurad suwarka makigaa qaybteeda hore ka mid ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku akhriyey suuraddii markii uu dhegaystay ayuu nin carbeedoo afkana garanaya buu ahay wuu isbeddelay dabeetana nimankii carbeed markuu noqday waxay dhaheen wallaahi rabiica ibnu cutbata ibnu rabiica sidii uu inagaga tegey si aan ahayn buu la soo noqday bay dhahay ninkii aynu dirray warka aynu ku dirray maaha maxaan qisadan uga dan leeyay qisada imaam alalbani wuu taxsiiniyaa fii siiratii waxaan leenahay waxa weeyaan qofkan inaynu dhegaysanno barorta waa ibtilaysan yihi dhib baa haysataa laakiin mashkilaadkiisa kan iyo waxaan madaxiisa ka guuxay iyo waxaanuu ismoodsiiyey ama waxaan loo akhriyay inaynu ka dhegaysanno waa mid labaada inaynu ogaannana xiwaarku dee qur-aanka ilahay wuxuu inoogu sheegay ambiye xataa ilaahay wax weydiisanaysa waid qaala ibraahiimu muxuu nebi ibraahim yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta ilaah waxaad i tustaa dadkan dhinta bal sidaad u soo noolaynayso ama nebi muuse inuu yidhahdo ilaah waxaan rabaa inaan ku arko idan su-aashu waxay doonta ha ahaato waxaynu u baahannahay dadkan inaynu dhegaysanno
وقرآنك إلهي وحين أغورما يا قال بدن حوار للسمي قار وحدي دنابا إلهي وحول قل وحد كنت هذا أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إلهي وحول وحد كنت هذا warbal waxaan aad baryaysaan ee cibaadada ula imanaysaan itusiya dhulkan waxay ka abuureen maada khalaqu min al-ard am lahum shirkun fi samaawaat kownkan dhana sidan u dhisan ma qayb bay leeyihiin bashuraka ilaahi kuleeyihiin ituni bi kitaabin min qabl hada kitaab hore waxaan ka warramayo sidan ku doodaysaan sheegaya hadduu jiro keena aw atharatin min cilmi ama raad aqoomeed waxa sheegaya hadduu jiro keena yani islaamku cilmi ma diidana لكن الحادك علمي معها الشبهات اللي سجيجي ساسي أوجد ما إلهي وحط المامية وارك إن لقى ركوة وحكنا أمسن المهاجة أما كوجود وما كان حنون هذا نقول عن مركز كده جيسته حب هيناد ما جينا هداد أدو أقوم طالع دينين دو جوابته haddaanad aqoontaa lahaynna inaad u baadi doonto tabiib kaloo daweeya ilmaaga xanuun caadi markuu ku dhaco haddaad anigu dhakhtar hayn oo daweyn karan in dhakhtarbaod la raadsaa soo maaha yaa dhakhtarkee fiican baad tidhaahdaa iyo takhasus wadneed yaale iyo waad waraysi tagtaa adigoo raba ilmaha inaad jiradan ka daweyso fakadaalik tanna waa jirro kale uun jirro kaloo ku dhacday هذا ما حبوا روحه هنا ندور هذه الصوت طبيب كلو دوية طبيب القلوب ضدك شبهات كقلبك بني آدم كأقل الدوية إن ندور هذه السو ولبا وحفي عن حوار كاسين وكتمان كله يتشعلين انت بدن إن اللي أجانين إنه وحر ميسي ويو كالجر البرشر باكرة inanka caad reerkoodii cadaaba walba waxaa rumaysana marka waxa kan iska qiranaya waxba uma arko inaga waxa jira cultural pressure ku wax jira oo nabigu kaleey salaatu wasalaam nin baa u yimo wuxuu yiri jaarkayga baa khaatiga taaganay jaar aad u xunbulaha nabigu wuxuu ku yiri alaabtaada intaad qaadato alaabtaada guriga intaad ka saarto wadada dhig ninkii sidii nabigu yeelay buu sidii nabigu amray buu aqbalay laabtiisii intuu soo qaatay ayuu wadada dhigtay dadkii baa soo maray war maxaa kugu dhacay baa la yiraahdaa jaarkayga dhib batay oo dee gurigaygii baan uga yimi inkaar alla kugu ridbay dadkii oo dhaweeyaan waa maagaan muxuu ahaa ninkan saan dadka u galay ninkii jaarka ahaa markii dambe u tago wuxuu yiri wariyaha dib ku dhibi maaye soo haraysa alaabtaada waa dambe kuga yani ninkan brasharkii mujtamaca bedelay مجتمع عدادس كيسي أي بدلي سادرد الماغن كالجرال برشر كهايستابو وحقا عبسي قبا إنو شيغان كريواي وحان لكن والرميسية وغرسانية والرميسية وغرسانية دي دركتي وعبايا هداي ورنقرار كان تهي وصمينيا هداي تهي عقيدة تمو لكن وغرسانية ولذلك وحا هبان بيدا هدان رقم مسائلك خبرة كواهي إن حتى هدادو قيسو عد وحا خبير كواه إن اللي بدو دون ودحاهاتو أنا تشيك شيكي يعني دو ديسو يساقي طبيب كيساسي وايو لقما يابدا انت دمالينو قيسو إنو فوكو إلى هدو دبتانا وقعو ما هصورتك هادكتي قفك كان الشبهات كان واكو بيرين مركا وحو باهي مدو إن حوارو فرما لبدو داتان ومسائل بدن maalin ba mid laga doodo oo maalin ba mid oo waxa laga yaabaa bila inay qaadato laakiin bila kadib inuu qancin karo waana tajriba aan aragnay rag u dhuun daloola masaa'ilkaasi oo culamo ahi dad badan oo ay diinta ku soo celiyeen oo loo keenay ala hada asaas bay ku daweeyeen inay uun labadooda dood u dhaxayso aan cid kaleba ogaanin ay u wadeenna ay markii dambe qanciyeen أكو سكوبة يا مركا إلهي قرآن كوحي نقولي
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نبي محمد بقى عليه وعد هذا وحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قرآن كان بقى ليس وحيودي سأن وجدك إذنك يعدي وقاري يبا إلهي وحولي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال هذا اللي استلمت قال هذا كم دي هدو مغنقلية إذن ويديستو مغنقلية إلهي أنتو كم مقلية إلهي وركي سبا رب إلهي سبحانه وتعالى ثم أبلغوا مأمنه. إلهي القرآن كوحكو المامية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ما أهين ما النقطة إن منك قالت يكو أهل كتاب كبايني قالوا عودا يدين حمدو دا كبحان ما يسور تقشان إلا يوت من محي بينا دعت ومحي رسول من الله يتلو الصحف المطهرة. رسول حق قال لك يمي وكنت الآخرين إياه صحف مطهرة فيها كتب قيمة باي إلهي سبحانه وتعالى. waxaan rabaa inaan soo koobo waxaan ku soo koobaya wuxuu yahay shubahaadkan ma rabo inaan masaajidka kaga dhex hadlo shubahada hebla waxaasay daliishadaan iyo waxaasaa lagu radiyaa ayaa kan dadka wuxuu u baahan dee kutubtay ku qorantay iyo meelahay ku taalla iyo qur-aanka say u isticmaali lahayn baynu tilmaamaynaa. laakiin waxaan rabnaa inaanu sheegna waxa weeyaan war meesha tan shubahaadkaasi waa tiro badan yihiin iyagoo weliba systematic ah oo schoolinka ka bilaabma ilaa iyo jaamacadda uu qofkaasi bii'ada waxaasi uu ku dhex jirayo ilmahaas idinku iyo masaajidka iyo maqaaxidii lagu murmayay iyo intan baa idinku tagtaan gaal kiina ugu badanay laba ula shaqeeya buu arkaa. laakiin dadkan yaryar waa isku melmeen meelahan ay wax ku dhiganayeen iyo meeshaanay la joogaan dhibtaasaa haysataa. shubahaadkaasna waxaynu leenahay waxay dhibeen dadkii aan loo dhigin caqiidadii diimeed oo marka hore aynu moodaynay dadku sidaa ay inoogu midab eegyihiin inay ugu caqiido ekaan doonaan oo marka hore inaan xil badan iska saarine xilka ugu badan aynu iska saarray inuu noqdo qur-aanka sida loo akhriyo inaynu wax ka barro. jisca muu akhriyi karaa tabaarak buu akhriyi karaa sida loo akhriyo inaynu wax ka barro. sida loo akhriyo waxaa ka sii muhiimsan sida loo fahmo. marka waxaan ku soo koobayaa darskeenna kan dhibtaasi waa jirtaa ubadkiina way haysataa waa mid ku fidmoobay iyo mid qarka u saaran. inta badbaadisa beersantkeedu waa beersanti yar. taariikhda bini aadamka soo jireenkana waxay tilmaamaysaa dadka aan iyagu wadanin manhaj wax bedasho dadka kale aan bedelaynin ugu badnaan inay 3 qarni 3 jiil inay ku bedelmaan. dad adugu sidii saxaabadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dad dacwo iyo diin wado iyagu dadka bedelaya yihiin oo manhaj sito oo iyagu wax dhigaya kuwaasi waa group kale. laakiin dadkan kale iska hijrooday kolba meel iska degaa 3 jiil unbay sii noolaadaan. jiilka 3aad dadku ka mid yihiin adugu kaa dashay isagoo yar khafiifa oo afkiina midhadh ka garanaya waxoogaa cilmi dhegdhegood yarna diinta ka maqmaqlay kaasi ku sii dhala qiyaas muxuu noqonayaa dee meeshaasii jooga. kaasi ka 3aad u dhala xagguu noqonayaa. practicalina waa la hayaa. eeg muslimiintii dagaalkii koowaad ee dunida tagtay latin america waxaa ka tegey muslimiin aad u tiro badan oo weliba shaam ka tegay dhulkan la yidhaahdo. atrak baa looga yaqaanaa xaggaa markay tageen waayo baasaboorkii cuhmaaniyiintay siteen oo inay turkiyiin baa loo haystaa laakiin waa carab. marka laga eego xagga dhaqaalaha iyo waxaa iyo madaxnimada iyo waa madax oo kuwii waddannadan latin america raggii xukumayey carlos mancim iyo hebel yani raggii xukumayey. marka xagga lacagta laga eegana waa tujaarta ugu waaweyn.
laakiin xagga diinta marka laga eego way tirtirmeen xataa masaajiddu california imika masaajidadan ku yaala qaar ka mid a masaajiddii waagaa hore muslimiintaa hore tagtay ay dhisteen qaar ba hadda baarking ah masaajid 7 dabaqaa jiro hadda baarking ah waa baarking gawadhida lagu xareeyo xagga sarena calaamadihii muslimka ee aad kursiya waxbaa ku qoran baarkinga markaad halkaa kaga soo socoto waxaa suran calaamadaa suran islaamiyo tilmaamaya kuway sii dhaleen unba iibsaday masaajidkiina ila iyagu masaajid ba may rumaysanayn daaruun awowyadoodii hore ka tegeen bay hayde waxaan uga dan leeyahay haddii la waayo waxaan cid iska xil saarta oo wax beddesha oo wax dhigta oo dadkana ilaalisa haddii la waayo saddexdaa guruubaan imika idiin sheegaya unbay ka mid noqon doonaan saddexdaa guruube trendka ah aan leenahay waa trendiska socda ayay ka mid noqon doonaan in ilaahay dafirta in qoomamka aan la garanayn ku biirta in daraggaa iyo waxaa ka shaqaysa noocaas unbay wakaan doonaan waxa quray ku badbaadi karaan dadkaynu u nimin aynu ku badbaadin karnaa waa inaynu diintan sheegno inana isu sheegno kuwan aynu u nimina aynu u sheegno oo ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeedhno wax kastoo xanuunoo jirana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxma lilmu'miniin qur-aankaasi wuxuu u yahay dadka mu'miniinta hudan wa shifaa shifaaءun lima fi suduur laabta waxa xanuun galo oo dhan midda weeyaan qur-aan baanu soo dejinnay baa ilaahay leeyahay caafimaad wax laga caafimaadana cuquusha iyo qulubta ugu fiican haddaad labadaa ka waalato waxba nolosha kale ma tarto dhadhan ma leh nolosha kale dad balaayin haysata dhadhan ma leh noloshu waxay dhadhan leedahay markaad labadaa ka nooshahay khitaaman lidars dhibtaasaa jirta dawadiina ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa labadaa wax baynu u baahanno siin inaynu samayno marka hore badbaadinno intaanay waxaas ku dhicin iyo marka labaad oo ah cilaaj fiican inaynu samayno sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam